mucaarad ka fadhigoodu yahay magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay soo bandhigay gaadiid dagaal oo ay saaran yihiin qoryaha ciidamadu ku dagaalamaan iyo sidoo kale hub culus oo lagu diyaariyay gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Sawirro warbaahintu ay heshay iyo muuqaallo gaar ah ayaa muujinaya guryo ka tirsan kuwa mucaaradku ay ku sugan yihiin oo lagu diyaarinayo gaadiid dagaal oo la saarayo qoryaha culus ee dagaalka, halkaas oo lagu qorsheynayo in ciidamada mucaaradku ay bilaabaan dhaqdhaqaaq toos ah oo laga dareemi doono magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. mucaaradka ayaa la sheegay kulamo isdaba joog ah oo ay yeesheen kadib markii shalay laga hor istaagay banaanbaxyadii ay abaabuleen in ugu dambeyn ay qaateen go'aan ah inay sugaan dhowrka maalin ee u hartay madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay ee Soomaaliya. dhowr bari kadibna 16 May marka 15 May muddaxileedkiisu dhamaado isaga oo madaxweyne hore ah ay magaalada Muqdisho ka bilaabaan banaanbaxyo toos ah oo gilgili doona caasimadda. mucaaradku waxay diyaarsadeen xilligaas wixii ka dambeeya inay helaan ciidamo si toos ah u sugi doona ammaanka mudaharadayaasha, banaanbaxayaashana ay garab socon doonaan gaadiid dagaal iyo ciidamo. qaybta ugu badan ee ciidankan waxa uu ka imaanayaa dhinaca Shariif Sheekh Axmed, madaxweynihii hore ee Soomaaliya, oo isaga Xasan Sheekh Maxamuud Culus uu isku dayay inuu ku godoomiyo hoyga uu ka degan yahay aagga Mirinaayo. sidoo kale ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre oo mudaharadayaal uu ka soo abaabulay Daynile laga dilay dad ayaa si toos ah isaguna qayb uga ah dhinacyada sida weyn u diyaarsaday ciidamada. guryahooda ayaa laga dareemayaa dhaqdhaqaaqyo waaweyn oo dhanka ciidanka. sidoo kale aagga Saybiyaano General Cabdi Qaybdiid Cawaale ayaa si rasmi ah u abaabulaya ciidamada dhankiisa, isagoo uu wacad ku maray in magaalada Muqdisho awoodiisa laga dareemi doono 16 May. mucaaradku kadib kulamo ay yeesheen waxa ay warbaahinta degdeg uga yeereen galabnimadii hore ee maanta aagga hoteelka Jazeera oo ah halka ugu muhiimsan ee saldhigooda ah, balse warbaahinta qaybtood ayaa loo diiday inay tagaan hoteelka Jazeera. ciidamo jooga aagga number 4 ayaa si toos ah la sheegay in ay warbaahinta uga hareeyeen gaadiidka ay ku safrayaan. wariyaal dhowr ah ayaa la xirxiray, kuwana qalabka ayaa laga qaatay, waxayna arrintaas mucaaradku ku tilmaameen caburin xad dhaaf ah oo keeni doonta in marka dambe uu qarxo iska caabin culusna ay shacabku kala hortagaan dawladda. Xasan Sheekh Maxamuud Culus, madaxweynaha muddaxileedkiisu gabaabsiga yahay, waxa uu xalay jeediyay khudbad ay ka muuqatay wejigiisa carar la yaab leh, waxaana si toos ah uu uga hadlay xaaladaha ka taagan gudaha dalka. mucaaradka ayuu eedeeyay, wuxuuna sheegay inay yihiin cadowga labaad ee Soomaaliya marka laga tago kooxda Al-Shabaab, taasoo muujinaysay carada xoogga leh ee uu ka qaaday banaanbixyadii koobkoobnaa ee laga sameeyey aagga Saybiyaano iyo sidoo kale aagga Mirinaayo kadib markii la xadaday isu socodka shacabka. Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu ka baaqday shir caalami ah oo madax kala duwan oo xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ka mid yahay isugu imaanayeen laguna casuumay oo ka dhacaya magaalada Nairobi, balse taas beddelkeeda wuxuu casharo looxjiid ah oo dhanka diktaatoriyadda iyo kaliya-talisnimada ah ka soo qaadanaya Yoweri Museveni, hogaamiyaha Uganda oo muddo dheer waddankaas hogaaminaya, halkaas oo caleemasaarkiisa uu kaga qayb galayo, taasoo muujinaysa waxa maankiisa ku jira kadib markii uu ka soo laabtay iscaleemasaarka geellaha Jabuuti oo keligiis tartamay.